maamulka degmada galdogob iyo ciidamada booliska degmada ayaa maanta barxad weyn ee degmada galdogob ku soo bandhigay ku dhawaad 8,000 oo dhalo oo khamri ah taas oo ahayd mid ugu badnayd ee lagu soo qabto falalka mukhadaraadka ee Puntland waxaana goobta ku sugnaa dhammaan bulshada reer galdogob oo goobjoog ahayd daawashada gubidda khamriga iyo mukhadaraadka degmada la soo galiyay waxaana ugu horeyn maxkamadda ay xukuntay gaarigii waday khamrigaas iyo waliba darawalkii waxay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee degmada galdogob kow eedaysanaha koowaad waxay ku xukuntay oo magaciisa la yiraahdo dani xuseen bayr axmed 25 jir ah ina xaawo cali biixi 6 bilood oo xariga sidoo kale waxay ku xukuntay gaariga noohada ee taargadiisu tahay UG 858 500 oo dollar oo ganaaxa iyo in la burburiyo dhammaan khamradii gaarigaas lagu qabtay oo lagu qiyaasay inay ahayd 8,000 oo xabbo oo ama dhalo ayay ahayd sida qiyaasta lagu hayo waxa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada galdogob iyo qaybo kamid ah ciidamada booliska degmada oo ka warbixiyay sida lagu soo qabtay khamrigan hadda la soo qabtay si sahlan laguma soo qaban askarteena askar kamid ah loo dhaawac oo isbitaalka u taala xoog baa lagu soo qabtay laguma soo qaban si kale laguma soo qaban degmada galdogob waxa ku taala xuduud dheer oo Itoobiya ay la wadaagto xadkaas dheer ay khamrigu si aan xad lahayn uga soo galaa halkan marka waxaan rabaa madaxwaynaha Puntland maanta inaan codsi uga jeediyo ana uga mahadcelinayo dadaalka uu ku bixiyay amniga oo ugu horeyso daroogada in la diriro waxaan leeyahay mudane madaxweyne ciidamadii howlgalkan fuliyay oo maanta khatarta inta la ka badbaadiyay dalka iyo dadkaba abaalmarin bay u baahan yihiin iyo dalacsiin waxaan rajaynaynaa inaad abaalmarisid inaad dalacaysid waan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaad meesha aad arkaysaan waxa weeye khamri waxaa sida uu sheegay garsooruhu waa wax 8,000 oo xabba ka badan waxaa la qabtay bisha 18keedii kuwa ka horeeyana waa la qabtay iyagana waa la soo bandhigi doonaa haddii aan la idmo waxaa lagu qabtay gaariga noohada oo taargadiisa uu tilmaamay oo 858 ay tahay iyo darawalka dani xuseen baa lagu qabtay waa la xukumay waxaa lagu xukumay meesha in khamrada in la gubo gaarigana waxaa lagu xukumay ganaax darawalkana waxaa lagu xukumay xabsi baa lagu xukumay 6 bilood ah bulshada qaybaheeda kala duwan ee soo dhaweysay oo garab ka siisay ciidanka in la soo qabto daraagan aad ka tirada badan aad bay u mahadsan yihiin waxaan leenahay halka kaga sii dhawaada ciidanku saacad yahay waa u taagan garabna siiya waxaan digniin u diraynaa ciid waliba oo ku hawlan barnaamijkan khaldan ee khamrida iyo daroogada ugu horeeyaan ay hooyada iyo aabaha u yihiin khamrida iyo xashiishku qof walba oo maanta na dhageysanaya oo ku nool Puntland meesha raba ka joogo galdogob markaan ka sifeeyna insha Allah taala meelaha damana u gudbi doona ciidanku wuxuu u gudbi doonaa qaybaha kala duwan ee Puntland baashan dhibaatada ku hayso ciidamadii waad maqlayseen kuwii daraawiishta kuwii dawladda hoose kuwii maxaan ku yiraahdaa booliska waad maqlayseen ay soo gurmadeen oo dhammaan isugu yimaadeen garsoorka hay'adii ugu sareysay maxkamadda darajada koowaad maxkamadda darajada labaad ee racfaanka gudoomiyihii ugu sareeyay maxamed way garab taagan yahay loo yimid munkarka tirada badan waa khamrigii ugu tirada badnaa oo aan u soo joognay oo waddanka Soomaaliya hal meel lagu gubo riboodka ay bixiyeen garsoorku waa 8,000 oo xabbo wax lagu qiyaasay weeye ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala ilaahay baa mahad leh bacdallahi waxa mahad kala leh ciidankii ku guuleystay inay balada qabtaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ya ayyuhalladina aamanu innamal khamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijzun min amali shaytaani fajtanibuuh la'allakum tuflixuun marka aad baa u mahadsantihiin falalka noocaana waxaan bogaadinaynaa in la ilaaliyo khamriga oo xuduudda Itoobiya galdogob saaran tahay aad uga soo gala oo lagu dadaalo cidii lagu soo qabtana sidaan oo kale meel fagaara lagu xukumo Absalaan Maxamuud Yuusuf TV-ga caalamiga Universal galdogob